qodobka koowaad laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha saddexaad 2019 wuxuu madaxweynaha u magacaabay sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar inuu noqdo taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Chief of Staff. qodobka labaad xeerkan wuxuu baabi'inayaa wixii xeer ah ee kor imaanaya. qodobka saddexaad wuxuu xeerkani dhaqan gelayaa isla maalinta uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu saxiixo waxaana lagu soo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muqdisho 25 bisha saddexaad 2019 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. lambar 146 magacaabid taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 8 koowaad xarafka C iyo farqada labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah markuu arkay qodobka 9aad xarafka B ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sharciga lambar 15 ee soo baxay 6 bisha afraad 1960 lagu dhisay xoogga dalka Soomaaliyeed soo jeedinta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lambar حتى سنة 2014 taariikhda markay 25 bisha saddexaad 2019 kuna saabsaneed magacaabid taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in la magacaabo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu madaxweynaha soo saaray xeerkan qodobka koowaad laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha saddexaad 2019 wuxuu madaxweynaha u magacaabay sareeyo guud Odawaa Yuusuf Raage inuu noqdo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. qodobka labaad xeerkani wuxuu baabi'inayaa wixii xeer ah ee kor imaanaya. qodobka saddexaad wuxuu xeerkani dhaqan gelayaa isla maalinta uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saxiixo waxaana lagu soo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. xeer madaxweyne lambar 145 magacaabid taliyaha ciidanka badda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 87 farqada koowaad xarafka C iyo farqada labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah markuu arkay qodobka 9aad xarafka B ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga lambar 15 ee soo baxay 6 bisha afraad 1960 ee lagu dhisay xoogga dalka Soomaaliyeed soo jeedinta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lambar 247/19 taariikh 25 bisha saddexaad 2019 kuna saabsaneed magacaabid taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha markuu garwaaqsaday in ay muhiim tahay in la magacaabo taliye cusub ee uu yeesho ciidanka badda iyo difaaca xeebaha wuxuu madaxweynaha soo saaray xeerkan qodobka koowaad waxaa sareeyo guuto Cabbaas Amiin Cali gaashaana sare Cabbaas Amiin Cali loo dalacsiiyay darajada sareeyo guuto isla markaana loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha